Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Ich warte waxaan auf den sugayaa Bus. baska waxaan sugayaa baska ich Ich warte auf warte auf waxaan den sugayaa Bus. den bus baska ayaan sugayaa Ich warte auf den Bus. Ich fahre mit der Linie 10. Ich fahre mit der Linie 10. Ich fahre waxaan mit der qaadanayaa Linie 10. nambarka tobanaad linia 10 oo micnaheedu Ich yahay fahre bas walba mit nambar der ayuu leeyahay Linie ich 10. fahre mit der linia 10 Ich muss an der 4. Station aussteigen. Ich muss an der 4. Station aussteigen. waa in Ich aan ku muss degaa an der 4. stationka Station afraad ee aussteigen. tareenka ama baska istaago waa in aan ku degaa Ich muss stationka an der afraad 4. Station. waxaan baranaynaa erayadan einsteigen waa raacid ama fuulid gaari ama bas ama tareen englishkana waxay dhahaan get on aussteigen ka degid waa in tareen aa ka degtid ama bas ama baawur aussteigen waa ama get off englishkay dhahaan aussteigen bedelasha waa to change inaad meelaa u socotay magaalo tareenaa ka degtay tareen kalea ku bedelay aussteigen waa anigoo ma jeceshahay in xayeysiin laguu sameeyo dukaankaaga ama alaabadaada ama kareemyada aad haysatid ee muddo badan ayna kuu bixin ma jeceshahay in xayeysiin la gaarsiiyo bulshada si ay ula socdaan alaabada kasta oo aad haysid goobtaada si loo ganacsi xayeysiiyo bulshadana loo gaarsiiyo barnaamijka xayeysiinta ayaan samayn doonaa sidoo kale ma jeceshahay inaad baafisid qof muddo badan kugu dambeysay ama qof aad la-dahay oo ku nool yurub ama africa ama aasiya america haddii aad jeceshahay waana la soo xiriiri kartaa si aan kugu baafino qofkaaga oo meel walba uu joogo oo aan isku dayi doono in akhbaartiisa aan ku gaarsiino oo yurub ah sidoo kale haddii aad jeceshahay in lagu xayeysiiyo dukaankaaga oo alaabada muddo badan goobtaada yaalay si aan u ganacsi gaarsiino bulshada waana la soo xiriiri kartaa waa barnaamijkiian oo isku soo dubaraday anigoo ah qaabeyntii jarjaridii waa anigoo ah wariye madax bannaan macalin cabdinaasir qujufa intaa ku kulmi doona barnaamij la mid ah barnaamijkan sidaasay nabaddiino freelance journalist and photograph